heestan cali caateeye ee magaceedu yahay ma qumani yahay bixin waxa ay ku jirtay riwaayadu abwaanku alifay masraxana la keenay gugii 1974 goor fanka Soomaalida calankiisu xidigaha ku loolnaa ciwaanka riwaayadu waxa uu ahaa farxadi waa naxdin goobta lagu jilayna waa magaalada Muqdisho fanaanada hibadeedu jaadgooniga tahayna waa caashaciga jiil mar la aragaha ayay kamid ahayd laxanku waa Cabdiraxmaan Dheere kabankuna waa Maxamed Xudaydi halka boonguhuna yahay Nuur Kulanne dhuxulow meeriskan waa mid ay gabadhu ugu jawaabayso aabaheed oo kolkaas u sheegay inuu siinayo wiil isagu u dooray waxa ay u sheegaysaa in iyadu hortiiba qalbigeeda u hibaysay wiilay iskeed u gaclootay inta aynan heeskan cadad u qalin bal in yar aynu faalayno ikeeyaha koobaad ee abwaanku adeegsaday si uu inoo fahansiiyo xaalka ay gabadhu ku sugan tahay Golan Heights waa buuraley ku yaala meel baas oo ka dhaxaysa kuwa aan weligood isnabad gelin waa kuwa isku haysta dhul diin khayraad iyo wax kasto aadami isku maagi lahaa waxa ay ka dhaxaysaa Yahuud iyo Carab oo jeeray heshiis yihiin andhayaha la saarin buurahan waxa ay dhulkiisa kamid yihiin wadanka Suuriya goor baas baa Yahuudu guluf ku soo qaaday kolkaasna xoog kula wareegtay kuwii 1967 ayay Israa'iil dagaal la gashay dal dawladeed oo ay Carabta qaybteed ku midaysnaayeen waxa ay dhulka qabsatay dalka Masar, Suuriya, Urdun iyo kuwa kale dagaalkii 6 Day kuwii 1967 ayay Israa'iil ku qabsatay gobolka Sinai oo ah dhulka Masar iyo buuraha Golan Heights oo iyaguna kamid ah dhulka Suuriya mar kale ayay dawladda Carbeed u tabaabushaysteen inay dib u hantaan dhulka ay Israa'iil ka qabsatay kuwii 1974 ayuu Anwar al-Saadaad oo ahaa madaxweynaha dalka Masar dagaal ku qaaday gumaystaha Israa'iil kolkaasna uu gacantiisa dib ugu soo celiyay gobolka Sinai Xaafid al-Asad oo isaguna ahaa madaxweynaha dalka Suuriya ayaa dhinaciisa isaguna weerar ku ekeeyay gumaystaha nasiib darrose waa lagu jabiyay dagaalkaas oo Suuriya kuma ay guuleysan xoreynta buuraha Golan Heights arrinku kolka uu sidaas yahay waxa beesha caalamku ka ahayd dhexdhexaadiye balse waxa ay xaqiiqadu ahayd inaysan reer galbeedku dhexdhexaad ka ahayn qadiyada buuraha Golan Heights ee Israa'iil xoog ku qabsatay waxa ay si hoos u taageerayeen Yahuudda iyagoo gardaradaas garab uga ahaa tan iyo waagaas way taagan tahay qadiyadu oo dhulkaas waa mid xoog ku haysto gumaystuhu weligeedna nabad ma noqon mushkiladda iyo dhibaatada halkaas ka aloosan iyo sida aysan uga soo reyn doonin isagoo abwaanku humaag inaga siinaya ayuu leeyahay deetana cali caateeye Allahu naxariistay isagoo isugu keen xidhaya dhacdada bariga dhexe iyo midda jacayl ay gabadhu warinayso ayuu inoo sheegaya in xaajadu laba u kala dhamalan tahay oo way baqalan tahay gabadhu qalbigeedii gacanta kuma bahayso oo jeer hore ayay wiil gayaankeeda farta ka saartay waxa ay aabaheed u sheegaysaa wax uusan ogeyn waxa ay leedahay qof dhan ma ahi oo ma qumaniye waxba hays oran gabadhan baad haysataa humaaga noocaas ah kolkii uu isugu keen xidhaya abwaanku waxa uu yiri
tabta ay dhacdo hore u tahay mid aan waxba laga dheefayn tiyo ay sababtu tahay gurtidii isku shuqushay inay xaliyaan oo gar eexaad falay ayay tanna u ahaanaysaa mid aan waxba laga dheefayn sida ay dhacdo hore u tahay mid joogto ah oo khilaafkeedu uu mar walba foolanayo ayay tan dambana u ahaanaysaa mid jiraalka guriga la yigleelayo la abtirsata waxa uu gurigu noqonayaa midaysan albaabadiisa u furnayn dareenka farxadeed tiyo ay sababtu tahay qalbiga marwada reerka oo aan oolin rugta lagu aroosay bal ee uu nin kale hantiyey kolka meesha tade aroosku ka dhacay qalfoofkii gabadha ayuunbaa yaalla oo lagu dulmashxaradeeyey ma yaallo qalbigii lagu dhisi lahaa guri uu reerku ku nagaado oo dhigihiisu isma sii haysanayaan marka kollayba waa kii dume hadda yaan garta la iga eexayn weeye micnaha ay gabadhu ka heesayso deetana middaas si uu u fahmo odayga inanta dhalay waa in waaqica la dhex keeno oo la tuso dhacdo uu wax ku garanayo oo sida tan loo falay waa middaas sababta uu abwaanku u doortay ekeeyaha buuraha Golan Heights ee bariga dhexe